oo dhaqanka noocaasa ku kacaya loogama dul qaadanayo loogama tanaasulayo cid lagu ixtiraamayo nabadgelyaduna ma jirto sheekh iyo shariif ninka nabadgelyo darro wada gacan bira lagu qabanaya wuxuu mutaysana oo la marinaya arrintan hoosta ka xariiqana waxa weeyii ma aha uun dhalinyarta inaad bartaan kubadda iyo xirfadeeda waxa wax walba ka muhiimsan akhlaaqda macallimiin ahaan waxaan aad iyo aad idinku dardaaranaa dhalinyarta inaad koow ka dhigtaan akhlaaqda inanka yar haddii uu haybad u leeyahay kubadda oo uu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay laakiin akhlaaqdiisu ay liidato hibadaa waxba uguma filla kooxdana waxba uguma filla mustaqbalna yeelan mayso marka inaad aad iyo aad ugu dadaashaan akhlaaqdaba ayaan runtii awoodda saartaan wax kastaana akhlaaqda kama soo hadhaan magaaladeena markaynu joogno runtii dawaydinkan arkayo oo inagoo waqtigaa wanaagsan ciyaarihiina rajada wanaagsan laga qabo aynu joogno oo aynu rabno ciyaartooy qarankana ka tartami kara qaramada adduunkana ka tartami kara inaynu soo saarno ayaa daraadee ciyaartooy midiis gelinaya gebili waa ayaan darro runtii muddo malaha 2 wiig 3 wiig gudahooda aduu waxaan filayaa 60kii cisho u dambeeyay ciyaartooy midiye gelinaya waa nusqaan weey waxaana idin tusinaysaa akhlaaqda iyo halka ka taagantay marka dawladdu lababa dadaalka ugu badan baynu galeynaa dhalinyarteena si mustaqbalkooda loo hagaajiyo haday ciyaar tahay haday wax kasta tahay dadaalka ugu badanna waxa la gelinayaa akhlaaqdooda in la ilaaliyo iyo nabadgelyada marka horta dhalinyarta halkan fariin baan uga diranaa nin kasta oo dhaqanka noocaasa ku kacaya loogama dul qaadanayo loogama tanaasulayo cid lagu ixtiraamayo nabadgelyaduna ma jirto sheekh iyo shariif ninka nabadgelyo darro wada gacan bira lagu qabanaya wuxuu mutaysana oo la marinaya haddii aad u barateen in meelaan inta ergal la ururiyo la idinku soo daayo saldhigan socon mayso waayo waxa ka dhalanaya ka badan ilmaha yar u bareeray inuu ilmo yar oo qeyrkii oo mustaqbal la midi geliyo wuxuu soo wadaa fidna ka weyn marka runtii dhaqanka waynu ka dabar jaranaa gacan adagna waynu ka qabaanaa loogana tanaasulayo dhalinyarta waxa runtii idinkana idinku adkeeynaa dhalinyarta akhlaaqdooda inaad aad iyo aad awoodda u saartaan maanta maalin sports ka rajo wanaagsan maad garanaysaan ama gebil ha noqoto ama qaranka marka runtii inaad rajada wanaagsan ee la qabanaad ilaalisaan anad ka faa'iideysataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay khayrka aydu waafajiyo wasaaradana oo mahad celin runtii waa madal qiimo badan oo aynu aad iyo aad u soo dhaweynayno ugana mahad celinayno wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha guud ahaan agaasime waa idinka mahad celinaynaa runtii dardarta wanaagsan iyo kor u qaadista sportska qaranka kor u qaadeen oo aanay taariikhda tababarada noocana horyaalada noocana iyo waxaasoo dhanba Soomaaliland 30kii sano aynu ku soo jirnay aan hore loo arag waa idinku hambalyeynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dadaalka wacan ee wadaan inuu sii socdo oo keeno miro dhal xagga ciyaaraha ah mar labaad waxaan soo dhaweynaa runtii tababarkan kooxaha lagu tababarayo ee aqoon ahaan loo tababarayo xifrad ahaan loo tababarayo si ay dhalinyar u soo saaraan mihnadii ciyaaraha ku wanaagsan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaad idinkuna ka faa'iideysataan wasaaradda runtii dadaalka badan ciyaartooyga gelinayso waxaynu u baahannahay inay saameyn guud ahaan Soomaaliland ku yeelatay insha Allah maamul ahaan gebilay runtii aad iyo aad ayaan agaasimeeyay ka mahad celinaynaa waxaan filayaa tababarada inta aad wadeen wafti intan u laagin aanu gobol la tagin waa idinka mahad celinaynaa waan ku mahadsantihiin
dhalinyarta macallimiinta ah ee reer Gabiley iyo dhalinyarta kale halkan joogtaba fursadda wanaagsan ee laydin siiyey oo ay xusid mudan tahay runtii qarankeena qof walba wuxuu garanaya haddii loo diro midho dhal wanaagsan baa soo bixi lahaa waxaa xusid mudan saraakiishii ugu sarreysay wasaaraddu inay iyagu tababarkii bixinayaan waa macno aad iyo aad u wanaagsan weeye qarankeenana dadka technicalka ee gacanta ka shaqaynaya inay waxaan ay qabanayaan aqoon u lahaadaan ayaa aad iyo aad u wanaagsan oo wasaaraddu runtii tusaale wacan ayay u tahay in agaasimihii guud uu qalanka qaadanayo wax idin barayo guddoomiyihii xidhiidhku wax idin barayo waa runtii fursad aad iyo aad u wanaagsan oo xilligaa oo aan xaq loogu lahayn xilligaa hadda 8 habeenimo oo aan saacadaha shaqada marka loo eegaan xaq loogu lahayn inay idinla joogaan oo wax idin barayaan jaanis aad iyo aad u wanaagsan weeye waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarta macallimiinta ah runtii dardaaran kow muddadaa kooban ee laydin barayo runtii dee aqoonta la xidhiidho shaqadaad haysaan inaad ka faa'iidaysataan oo aad weelaysaan waxa laydin barayo laba inaad ku dabaqdaan aqoontaad barataan shaqadaad haysaan oo runtii inta badanna dee aad istirteen u malayn maayo macallinnimada nin mushaar ku qaadanaya inuu jiro waxay isu dirteen inaad soo saartaan dhalinyar ciyaartooya oo gobollada iyo degmooyinka aad ka kala socotaana oo xilkasnimo runtii dee dhibna aad ku qabtaan dulqaadkaana runtii dee waa idinku hambalyeynaa